maxaad ku fakari lahayd haddii qof hortaada socda inta uu kabtiisa uu la soo baxo uu dhagta uu saarto dabcan jawaabo fara badan ayaa maskaxdiina ka guuxaya oo ay ka mid tahay amaba ugu horeyso bal qofku miyuu waalan yahay balse sidaasi ma ahan xaaladdu waa ay ka duwan tahay shirkadaha tiknoolajiyadda casriga ah maalinba wax cusub ayay dunida ku soo kordhiyaan haddase waxa ay tijaabo ay ku wadaan soo saaridda tiknoolajiyad la xiran karo iminka waxa ay shirkadahani ay ku howlan yihiin sidii ay moobiladii hore ee gacanta dib ugu soo casriyeyn lahaayeen iyagoo ku dhex sameynaya kabaha la xirto. That's calling. Oh, hold on. The right foot's going. Hello, bro. This is Silver Welly. nashqadyahan Sean Miles waxa uu ka tirsan yahay shirkadda teknoolajiyadda Design Studio ee ku taala magaalada Windsor ee dalka Britain waxana uu ka hadlayaa tijaabadan ay ku mashquulsan yihiin ee ah in moobilada kabaha salkooda lagu sameeyo. In the bottom of the shoes we have a range of mobile phones which we've integrated into the sole. salka hoose ee kabta waxa aanu ka yeelnay moobilka gacanta oo aanu ku dhex sameynay cagta which we've integrated into the sole. Sino la weydiiyay sida qofka uu ku arki karo fariimaha qoraalka ah ee loo soo diro ayaa waxa uu yiri We have these are fully functional devices, so we've maintained all the original functionality of the product. waxaanu u sameynay dhammaan walxihii kala duwanaa ee moobilada dalka kuwaasoo si caadi ah u leh dhammaan asal ahaan shaqooyinkii qalabkan. The whole point of using a product like this is that it's just a bit of fun, a bit of light-hearted fun. muhiimadda ugu weyn ee laga leeyahay isticmaalka qalabkan oo kale waxa ay tahay xoogaa madadaalo amaba qosol ah. shirkadaha tiknoolajiyadda ayaa waayahan dambe waxa ay ku howlan yihiin samaynta horumar tiknoolajiyad cusub oo ay ka mid yihiin dhar leh shaashad lagala socon karo shabakadda adeega bulshada ee Twitter-ka, moobil sameecadaha dhagaha ah oo kiyaala Google ah, moobil la shaqeeya saacadaha gacanta lagu xirto iyo jijimo amaba shuweeliyo caafimaadkaaga guud ka warhaynaysa. waa hagaag daawadayaal waxaan filayaa inaydan la yaabi doonin haddii aad aragtaan hadda kadib qof inta kabtiisa uu la soo baxay dhagta uu saartay oo aad fahmi doontaan inuu qofkaasi mobile oo ku hadlayo